madaxda dowladda federaalka Soomaaliya waxay weli la rafanayaan inay waddanka ka gudbiyaan isgooska halista ah ee uu taagan yahay sida uu aaminsan yahay Xasan Cali Kheyre ra'iisul wasaarihii 19aad ee Soomaaliya oo talaadada maanta ah qoraal ku daabacay bartiisa gaarka ah ee Facebook ayaa shaaca ka dhigay in nasiib darro weyn ay tahay in khilaafka doorashada sii daba dheeraaday isla markaana danta shakhsiga ah laga hormarinayo midda guud ahaan Kheyre ayaa hoosta ka xariiqay sida ay muhiim u tahay in Soomaaliya ay xal degdeg ah u hesho isfaham waaga doorashooyinka isla markaana lagu maareeyo geedi socod loo wada dhan yahay Kheyre ayaa 25kii Julaay 2020 wuxuu shaaciyay inuu iska casilay xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya shaacintaas waxay timid saacado kadib markii golaha shacabka cilaamiyay in uu kalsoonida kala laabtay xukuumaddiisa marka aan ka hadlayno muhiimadda qabashada doorasho ku dhacda si la wada ogol yahay ma ahan ama kama dhigna inaan ka fikirno 40 maalmood ee soo socota waa inaan ka fikirnaa 4 sano iyo 40 sano ee soo socda sababtoo ah qaabka aan u maarayno iyo sida ay wax u dhacaan 40 maalmood oo soo socda ayaa saameyn weyn ku yeelan doonta mustaqbalka 40 sano oo ummadda Soomaaliyeed ku soo foolay sida ay taariikhdu nabarayso marka aad aragto dal walba oo soo kabanaya sidii dalkeena oo kale marka uu hor taagan yahay go'aan masiiri ah oo doorasho horumarkiisu waxa uu ka dhashaa sida doorashadaas loo maareeyo dib u dhacaysuna wuxuu ka dhashaa sida doorashadaas loo musuqmaasuqo mana aha fikir aniga iyo musharaxiinta kaligaan aan qabno laakiin waa cilmi ay nabarayso taariikhda iyo dalalka soo maray dhibaatooyinkaas sidii aan horay u sheegay waxaan idhi haddii aanay Soomaalidu ku heshiin nidaamka doorashada madaxtinimada dalka ka hor inta aysan doorashadu dhicin kuma heshiin doonaan natiijada ka soo baxda doorashada iyo guud ahaan wadaagga dowladnimada dalka Kheyre iyo Farmaajo waxay isku qabteen doorashada Soomaaliya Maxamed Yaxya Jiinow warbaahinta Nation Muqdisho